ciidanka xoogga dalka qaybta 27aad ee ku sugan degmada Bulaburde iyo ciidamada nabad sugidda ayaa howlgal ka sameeyay xaafadaha degmada iyo deegaano hoos yimaada degmada Bulaburde. ujeedka howlgalka ay u sameeyeen ciidamada ayaana waxa uu ahaa ururka argagixisada Al-Shabaab oo maalmahan dambaba ku soo badanaya tuulooyin hoos yimaada degmada Bulaburde si ay u dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee u soo safraya degmada. saraakiisha hogaaminaysay ciidanka xoogga dalka oo ka warhelay goobaha ay ku sugan yihiin argagixisada ayaana howlgal ka sameeyay deegaanada hoos yimaada degmada Bulaburde. kusimaha taliyaha qaybta 27aad ahna madaxa laanta qaybta 27aad Xasan Maxamed Garaad iyo taliyaha ururka 41aad guutada shanaad qaybta 27aad Maxamed Muumin Cilmi ayaa shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka maadaama ay rabaan argagixisada inay shacabka ay qalqalgeliyaan iyo howlgalka ballaaran oo ku saabsan in gudaha magaalada iyo dibaddeedaba laga xaqiijiyo magaalada amnigeeda. waxaan ogsoonahay inay magaaladan in badan meelaha qutul daruurigu uga yimaado ay ka go'toomiyeen kooxaha argagixisada. haddii ilaahay idmo intii laga gaaraa in laga xaqiijiyo meelaha yaryaro farakutiriska ay uga siman yihiin ay uga joogaan ay wadooyinka uga jiraan ee dadka shacabka ay ku dhibaateynaan. wuxuu ujeedkaynu ahaa howlgalka maanta gudaha iyo magaalada Bulaburde gudaheeda iyo dibaddeeda intaba aan ku xaqiijinayno in aan uga shaqeyno sidii uu ahaay waajibaadka amniga iyo waxqabadka ciidamada.